Assalaamu calaykum. Mowduuca kalsoonida waa kan ugu badan ee laga hadlo, laakiin inta badan si khaldan ayaa loo fahmaa. Ma ahan kalsoonida shay hal wax lagu soo koobi karo, waana uu kala baxaa, laakiin muhiimadu waxay tahay in qof kasta oo dunida ku nool ay wax ka maqan yihiin. Waana mid uu Rabbi ku uumay bini'aadamiga. Raadinta kalsooni waa la kala qaadaa. Tan ugu badan ee laga hadlo waa kalsoonida nafta. Haddii aan soo koobo fasiraadda kalsoonida nafta, waxay noqonaysaa in aad ku qanacsan tahay sida aad tahay, waxaad tahay qof ahaan kuna faantaa. Qaladaadka ugu badan ee ka dhaca dhiirigeliyayaasha waa qeylo bilaaqisa, in dad meel laiskugu keeno kadib laga gado hadal kicinaya dareenkooda intaas meesha lagu sugan yahay. Kadib markii laga baxo hoolkaas oo lagu qabanayo dhiirigelinta, qofta ay ku soo laabanayso meeshii hore ileen dareen bilaa dhacda buu ahaaye. Inta uu socdo kilibkan waxaa kugu sheegaa dhowr siyaabood ama dhowr qodob aad ku gaari karto kalsoonida. Waxaa soo buuga laga qoray. Helidda in aad isku kalsoonaato way kala baxdaa. Waxay u kala baxdaa labo oo ah kan koowaad, shay dabiici oo Rabbi kugu uumay. Taasi in aad ku qanacdaa waa waajib oo waxba kama bedeli kartid, sida muuqaalkaaga, qaybaha kala duwan ee xubnaha jirkaaga. Dadka bedelo muuqaalka dabcan waa kuwa ugu shallaytada badan dadka, maxaa yeelay ma awoodi karto shalay waxa ay awooday. Laga yaabaa in ay kasii falxumaato intii shalay. Ku dhicidda virus ama bacteria waa ay u sahlan tahay oo maqaarkii ama unugyadii difaaca jirka ayaa meeshii ka baxay. Sida caadiga ahna qof ma rabto qofka jirkiisa u cadeeya raaligelinta qof kale, rag iyo dumar midka horeba ha ahaadee. Marka in aad ku qanacdo sida aad tahay waa shay muhiim ah. Tan labaad, mid aad wax ka bedeli kartid si aad kalsooni u hesho waa in aad wax ka bedeshaa dhowrkan dabeecadood ama dhowrkan qodob aan ku sheegi doono. 1. Ku kalsoonaanta dhaqankaaga iyo Rabbiga ku uumay. Bal ka war nin asiga aan kalsooni dhaqan haysan haddana oranayo dad baan dhiirigelinayaa. Waxa aad sheegaysid waa in ay adigu ka muuqataa koodii hore. Waxaan ka wadaa tusaale ahaan, ninka ay jeega u jaran tahay haddana oranayo waan isku kalsoonahay, ogow in uu been sheegayo. Oo ma jirto shay ka weyn in aad ku kalsoonaa weydo diintaada ama dhaqankaaga. Rabbigii aaminsanayda wuxuu kaa reebay diido adoo lagu qasbin dhaqan kale qaadashadiisa. Laga yaabo in aad TV ama meel kale aad ka aragtay kadibna aad ka dabadeystay bilaa qoraaladiis la'aan. 2. Fiirinta hal meel. Markaan saas leeyahay waxaan ula jeedaa in xumaanta lagaa sheego aad u dhagan nugushahay, aad u nooshahay qancinta dadka hareerahaada ku nool. Waana wax aad weligaa goobaysid, aadan gaareen kaana maqan. Haddaa si kale u dhaho, wixii lagaa sheego oo xumaana in aysan wada jirin, ogow in ay jiraan dad kula tartamayo aadan ogeyn. Haddaa aragto qof aad waxba ka sameyn kuna areysan, waa qof ka maseersan waxa aad qabatay. Sida kale in aad wada qaadato wixii wanaaga oo lagaa sheego aad ahayn ayadana waad kulmaysaa. Waa tii uu lahaa nabigeena suubanaay, ammaanteeda yaa lagu tixtigin, waxaan ahayn yaa laga dhigin, meel aan gaarsiisaneyn yaa la gaarsiin. Marka labada dhinac ha wada qaadan oo iska eg. 3. Dhisidda jirkaaga. Ma ahan in aan ku leeyahay aad meelaha jiimka lagu ciyaaro oo lacag ku bixi, waa qabo wixii karaankaada ah sida orodka, jimicsiga, ciyaarada kubadda cagta si wanaagsan, waqtina uu kaa lumeyn, aana iswada siiyeen. 4. Sixidda labiska. Marka aad tahay qof labisan, dabcan waxaad dareemaysaa kalsooni, oo waa tii ay dhahayeen culimada psychology-ga, marka adimaa xiran mise asiga ayaa ku xiran. Tusaale, markii lagu galsho dharka askarta waxaad dareemaysaa awood ka baxsan tii aad lahayd. Markii lagu galsho dharkan tujaarta wax kale baad dareemaysaa. Dadkuna hadba sida aad tahay ayay kugu la macaamilayaan. Dhisidda maskaxdaada waa qodobka 5. Ma ahan mid kugu filan dugsi quraan baan ka soo baxay, iskuul baan soo dhameeyay, jaamacad ayaan kasoo qalin dashtay. Intaas waa aas-aasiga nolosha oo dadka intooda badan ayaa ka wada siman. Marka wax akhri, waxna dhageyso. Ma taqaanaa sababta laba looga dhigay indhaha iyo dhegaha, halna looga dhigay afka ama carabka? Waa in aad wax badan aad akhrisaa, wax badan aad dhageystaa, wax yar intii aad korsatayna aad dadka la wadaagtaa. Qodobka 6. Ha barbardhigin naftaada dadka kale. Dadka badankii waxa ay sameeyaan caado xun oo ah
in ay barbar dhigaan naftooda dadka kale iyagoo ka eegaya dhinacyo badan sida waxa ay haystaan, hantidooda, quruxdooda, farxadda ay ku nool yihiin, nolol maalmeedkooda iyo qaar kale oo badan. Dhibaatada ay arrintan leedahay ayaa ah in mid kastoo ka mid ah saaxiibada ama qoyskaaga ama dadka aad taqaana waxay leeyihiin wax u gaar ah oo aanad lahayn. Haddii aad joogtayso in aad barbar dhigto qof kastoo la kulanto, waxaa qiimo tirmi doonto naftaada, sababi kartana in kalsooni naftaada dhulka ay gasho ay hoos said ugu dhacdo. Qodobka 7, si togan oo positive ah ula hadal naftaada. Sida aad naftaada ula hadasho isla markaana aad u meeleyso waxay saameyn aad u badan ku yeelanaysaa kalsooni naftaada. Haddii aad naftaada uga sheekayso in aad fiicneyd isla markaana aad hoos u dhigto oo aad liido, waxaa hubaal ah in aad yeelan doonto kalsooni aad u hooseyso oo aad aamini doonto hadalkaas. Si aad kalsooni naftaada sare ugu qaado, ka fogow in aad naftaada kula hadasho hadallo taban ama negative ah. Badanaa dhoola cadeey, qusul, kuna hareeree naftaada dadka faraxsan isla markaana positive-ka ah. Taasi waxay kuu saamaxaysaa in aad dareenkaaga ka wacnaado sidii hore, isla markaana dadka aad la joogto waxay xiiseyn doonaan la joogitaankaaga iyo wehelkaaga. Qodobka 8, deji hadafyo yaryar kuna guuleyso. Dadka badanaa waxa ay dejiyaan hadafyo aan la gaari karin ama waqti badan qaadanaya oo culus. Marka ay fashilmaanna waa ay niyad jabaan. Xagga aad taas ka sameynayso, dejiso hadafyo yaryar oo aad ku gaari karto isla markaana ku guuleyso. Waxaad dareemi doontaa kalsooni. Inta badan haddaad ku guuleysato hadafyada yaryar, waxaad badanaysa kalsooni naftaada. Intaas ayaan kusoo koobayaa clipkan aan ugu talagalay kalsoonida oo waxaa soo buuga aragteen meel kasta daadsan laga qoray. Assalaamu calaykum.